dowladaha Soomaaliya, Turkiga iyo Qatar ayaa ka wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa ammaanka sugidda ciidamada iyo waliba shaqaalaha ajnabiga ah ee ka howlgalaya wadada dhismuhu ka socda ee Muqdisho iyo Afgooye. Zeynab Maxamed Aadan ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa kulan gaar ah kula qaatay safiirada dalalka Turkiga, Qatar iyo maamulaha shirkadda Enes taliyaasha booliska xoogga oo uu wehelinayay taliyaha booliska gobolka Banaadir. Kulanka ayaa intiisa badan looga hadlayay dardargelinta mashruuca dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye iyo sugidda amniga howlwadeennada ka shaqeeya. waxaana la isla afgartay in laga hortago weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan wadadaasi si uusan hakad u galin mashaariicda horumarineed ee wadadaasi dib loogu dhisayo. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa faray taliyaasha ciidanka ee kulanka ka qayb galay in ay la yimaadaan hanaanka ugu habboon ee lagu xaqiijinayo amniga si howlwadeennada ay si dhaqso ah u soo gabagabeeyaan dhismaha wadada oo muhiim u ah isku socodka bulshada, horumarinta ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha. Taliyaha booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar ayaa kulanka kadib ka hadlay waxyaabihii dhinacyadaasi ay ka wada hadleen iyo waxyaabaha laga yeelayo amniga wadada Muqdisho iyo Afgooye. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa saaka Ra'iisul Wasaaraha xafiiskiisa isugu yeeray dhammaan hay'adaha amniga ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaanu laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada Afgooye iyo Xamar isku xirta oo ay gacanta ku hayaan dowladda walaalaha ah ee Turkiga ah sidii loo dhameystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqeynaya wadadaas. waxa kale oo aan rabaa in halka ka sheego in cadowga ummadda Soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dib u dhis lagu sameeyo, horumar lagu sameeyo, wadooyin loo sameeyo, nolol dadka loo abuuro, jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidanna waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sarreynayo inayan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira booliiska, militariga, nabad sugidda iyo ciidamada kale inay ka hortagayaan lana shaqeynayaan dardargelinta wadadaas. arrintaas ayaa aad looga hadlay, loo filaanqeeyay. waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiyiinta ah ee naftooda u haray ee u dhabar adeegay dhibaato kasta oo ka soo gaarta wadada inay wadaan inay muxuu ahaa inaan ugu mahad celiyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhameystirka wadadaas oo hadda gabagaba meel maraysa. Sanduuqa horumarinta Qatar ayaa maalgelinaya mashruuca dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye oo dhismihiisu ay fulinayaan shirkadda Enes oo laga leeyahay dalka Turkiga. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay kordhiyay weerarada ay la beegsanayaan qandaraaslayaasha Turkiga ee ku howlan dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.